السلام عليكم مركلي waxa weeye ee dugsi oo hawada ku soo noqotay oo maantana waxaan rabnaa inaan wax yar ka taabano maaragtay xisaabaadka dhinaca annaga oo ku hadlayna af Soomaaliga okay waa ee dugsi oo maanta rabta inay ka hadasho xisaabaadka sida isku dhufasho ama se multiplication okay waxaan rabnaa marka maanta inaan ka soo qaadano laba number sida la isugu dhufto adigoon u baahneen wax calculator ah marka waxaan raacaynaa qaacidada labada number sida waxaan soo qaadanaynaa tusaale ahaan hadda soo qaadano 15 lagu dhuftay 25 okay maanta waxaan rabnaa inaan isku dhufano xisaabtan annagoo aanan soo qaadan calculator la'aan sida ugu dhaqsaha badan marka saddex step baan raacaynaa stepka koowaad oo ah table baan dhisaynaa marka hore waxaan hadhow ma baahnaan doontaan just waxa weeye waa illustration way sida ugu dhaqsaha badan oo loo suubiyo okay tableka saddex step baan maraynaa saan idin sheegay so tableka saas buu dhismayaa okay stepka koowaad stepka labaad iyo stepka saddexaad okay marka xisaabteena bal aan soo qaadana maanta aan isku dhufanayno waxa weeye waa 1 5 2 5 okay shuruudda koowaad waxay tahay marka ugu horeysa waa taas dhowr shuruud aan raacayna haddii la yiraahdo okay shuruudda koowaad waxay tahay labada number oo ugu geysay halkan is jiro ayaad isku dhufanaysaa shuruudda labaad waxay tahay waa cross multiplication baad sameynaysaa oo halkan iyo halkan labada jira isku dhufani halkan iyo kan wax isku dhufani wadarta ayaad isu geynaysaa kadibna waa qoranaysaa midda saddexaad ugu dambaysa saddexaad waxa weeye labada number ku haray ayaad isku dhufanaysaa okay so let's start marka labada number ugu goosay ugu midigta jira isku dhufano waa 5 lagu dhuftay 5 meeqa waa 25 shanta ayaan dhiganaynaa laba ayaan wadanaa this is the most important market aspectiga ama qaybta ugu muhiimsan waa haraaga soo hara 5 baa wadataa so shanta halkan noogu qor 5 baa soo dhigan now qaacidada labaad waxay nooranaysaa marka isku dhufo cross isugu dhufo kadibna wadarta isku dar waxa weeye waa 5 lagu dhuftay 1 waa misweeye waa 5 labo lagu dhuftay 5 waa 10 isku dar labadooda waa 15 waxaad wadatay 2 okay labaad wadatay so labada marka 5 marka laba lagu daray misweeye waa 17 waxaan soo qaadanaynaa marka 7 okay hal baan wadanaa waxaan tegaynaa stepka saddexaad oo ah labada number noo haray ayaan isku dhufanaynaa oo ah 2 lagu dhuftay 1 misweeye 2 lagu dhuftay 1 waa 2 ilaa halka wadatay markaas ku dartid waa 3 okay jawaabtaada marka waa 375 anaga aanan isticmaalin marka waxaan sameynaynaa inaan ka shaqeyno xisaabtan graafkan anaga aan isticmaalin ama tablekan aan isku dayno mar kale aan ka soo qaadanay laba number kale 36 lagu dhuftay 16 okay so maxay ahayd marka nala tusay labada ugu geeska isku dhufo 6 lagu dhuftay 6 misweeye 36 imisa wadataa 3 ilaa 3daas now isku dhufo labadan cross isku dhufo 6 lagu dhuftay 3 misweeye waa 18 hal lagu dhuftay 6na waa 6 so labadan isku daraysaa misweeye marka waa 24 imisaad wadatay 3 baa wadatay waxa weeye 27 waxaan soo qaadanaynaa 7 ha ilaawin labaad wadataa mar kale waxaa lagu dhuftay 2 ama hal lagu dhuftay 3 hal lagu dhuftay 3 waxaan isku dhufanaynaa saan stepka hore saan buu ahaa 3 hal ku dhufo waa 3 ilaa imisaad wadatay 2 isku dar labada markaas waa 5 jawaabtaada markaas waxay tahay 570
iyo 6 waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan mar kale casharada ka baxa iyo dugsi ayagoo dhowr nooc kale ahna waan idiin soo duubi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo sida iyo nabad gelyo